Asalaamu calaykum. Soo dhawow daawade. Sidaan hore idinkugu ballan qaado waxaan muuqaalkeena maanta uga hadli doonaa sida loo dhiso ama loo aas-aaso waxa loo yaqaano dakhliga dadban amaba passive income. Inta aan u gelin barnaamijkeena haddii aad ku cusub tahay channelkeena fadlan subscribe saar. Ka waran haddii lagu siiyo laba ikhtiyaarood oo ka koowaadna uu yahay inaad abuurato dakhli firfircoon amase active income si aad u shaqayso adigoo helaya mushaar aasaasi ah amaba adigoo ku bedelanaya shaqadaada lacag ha ahaato shaqaalanimo amaba ganacsi aad adigu leedahay. Ikhtiyaarka labaadna uu yahay inaad abuurato dakhli dadban si aad u hesho lacag adigoon joogin shaqadaada caadiyana iska fadhiya xeebta qoraxdana daawanaya sidaasina uu dakhli kugu soo xaroodo. Haddaba daawada adiga midkee baad dooran lahayd? Waan hubaad inaad si toos u dooran lahayd ikhtiyaarka labaad oo ah passive income sax, balse waxaan kuu hayaa xaqiiq qaraar waayo maba jiro waddo fudud oo sahlan oo si toos ah u tagta passive income ilaa iyo inaad ka dhalatay qoys lacag leh oo kaa saacida inaad dakhli hesho si aad uga dhigato shaqo sida loo abuuro dakhliga dadban. Waxaa jira laba dariiqo oo lagu sameeyo shaqadaas laguna maalgashado amaba lagu dhiso oo lagu beero. Iyo ogolow inaan kuu sharxo sida loo dhiso dakhliga dadban. Dooro shaqo ama bilow ganacsi kadibna mushaarkaada ku samayso waxa aad jeceshahay iyo waxa aad ku wanaagsan tahay. U shaqay si adag inta aad awoodo. La soco dakhliga ku soo gala iyo kan kaa baxa intaba. Haddii dakhligaagu ka bato isticmaalkaaga amaba baahidaada, maalgelin samee oo maalgasho real estate, stocks iyo wixii la mid ah. Kadib waxa kuu jeexmaya qad dakhli dadban uu kugu soo galo. Si aad u dhisto dakhliga dadban, waddada labaad waa inaad dhisto ood beerataa. Tani waxay la mid tahay waddadii koobaad, waxayna kugu qaadanaysaa shaqo adag oo horumarsan. Tusaale, inaad furato kanaal YouTube adigoo adeegsanaya waxyaabo xiiso geliya daawadayaashaada, ama inaad buug qorto kadibna aad iibiso, amaba koorsooyin online ah inaad bixiso. Waxaad ka heli kartaa dakhli dadban, balse dhammaantood hubaal maahan inaad ku guulaysanayso. Mar kale diiradda saar oo ka fakar inaad ku wanaagsan tahay ama aad ku raaxaysanayso qabashada hawshan. Haddii ay kuu hirgalaan howlahaas, waxaad noqonaysaa mid hela dakhli joogto ah. Sidaas daraaddeed waxaad goosan doontaa miraha shaqo ee aad sanado badan sugaysay, waadna u qalantaa. Daawade, si aad iga caawiso abuuritaanka dakhliga dadban, fadlan subscribe saar channelka.